Deegaanka Xalxaliye oo ka tirsan degmada Boocame ee gobolka Sool ayaa waxaa ku nool dad xoolo dhaqato ah oo ay haysato duruufo wax la'aaneed. Deegaankan oo ay ku nool yihiin qoysas badan oo ay ka dhamaysay xoolahoodu abaartii dhawaan ka dhacday deegaanadan. Dadka deegaankan ayaa ka cabanaya inaanay helin wax taakalo ah oo ka timaada guddiyada abaaraha ee gobolka Sool. Xukuumadda Somaliland iyo waliba hay'adda Haro oo ka mid ah hay'adihii sida weyn uga qayb qaatay gurmadkii abaaraha ee deegaanadan ayaa waxay gaarsiisay qoysaska deegaanadaasi deeq raashin oo isugu jirta cuntooyin kala duwan. Caaqil Cabdirasaaq Axmed Cilmi oo ay soo wakiilatay hay'adan gaarsiinta deeqdan ayaa faahfaahin ka bixinaya. meeshan aynu joognaa waa tuulada Xalxaliye oo ka tirsan deegaanka Boocame. deeq raashin ah oo ka timi hay'adda Haro ee fadhigeedu yahay Minnesota. waxaan u mahadcelinaynaa ciddii deeqda la baxday dadka walaalaha ee muslimka muxsiniinta ee deeqda la baxay ee reer Minnesota oo soo mariyay hay'adda Haro uuna nooga soo qaaday ilaahay ha xafidee Maxamuud Mire Kacli. runtii waan u mahadcelinaynaa shirkadda. halkan waxaan ku qaybinaynaa 45 qoys raashinkood oo aanu keennay halka kan oo la yiraahdo Xalxaliye. dadkiina waa kaasoo waa jooga. waxay ugu soo beegantay dadkii la baxay xilli wanaagsan oo bishii Ramadaan afuray u noqonaysaa. afuraduna dee ajarkay leedahay waad garanaysaan. raashinku wuxuu isugu jiraa bariis iyo bur iyo sonkor iyo saliid iyo timir. qutul daruurka dadku cuno waa intuu ugu wanaagsanayd. dad badan baa waxay war Xalxaliye meel jirta maahe. Xalxaliye maanta aad indhihiina ku arkaysaan. waa tuulada muuqata, waa deegaanka muuqda, waa dadka muuqda. dhinaca kale qaar ka mid ah odayaasha deegaankan ayaa si weyn uga mahadnaqay hay'adan. waxaanu anagu soo dhaweynaynaa hay'adda Haro yaanu soo dhaweynaynaa oo fadhigeedu yahay Minnesota. waxaan u mahadcelinaynaa odayaasha iyo khiyaariinta soo gudbisay hawlaha. meeshan la yiraahdo Xalxaliye markeeda hore waa meel ka tirsan degmada Boocame ka sii tirsan gobolka Laascaano. waxaa dega dad fara badan oo xoolo dhaqato ah. waxaa ku noolaa abaarta ka hor xoolo fara badan. waxaa ku noolaa dad fara badan. waa meel dadkeeda iyo deegaankeeda iyo xoolaha jooga aad iyo aad u badan yihiin. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. haddeeroo abaari ka dhacday xoolihii ka hayaameen maxaan kuu sheegaa ka yaraadeen waxna baxeen waxna joogaan. waxaa noogu yimi haddaanu nahay reer Xalxaliye raashinkii warbixintiisa horay Cabdirasaaq Axmed aad uga maqasheen odayaashii noo keenay nooga yimi hay'adda Haro fadhigeeduna yahay Minnesota. uu ka soo qaaday Maxamuud Mire Kacli hore u maqasheen. uu ku soo simay odayaasha haddeer qaybtood nala joogto Xalxaliye noogu keenay Cabdirasaaq Axmed Xaaji Cilmi uu ka mid yahay. annagana way noo keeneen haddaan reer Xalxaliye nahay. waa ka qabanay waa ka guddoonnay.